Salaamu calaykum. Sheekadayna maanta waxay ku saabsan tahay qoyskan oo aad u fiicnaa ayaa maalin maalmaha ka mid ah odaygii iyo islaanta ayaa doonay inay safar tagaan, gabadha yarna ay meeshan kaga tagaan. Goortii dambe odaygii iyo islaantii safarkii waa ay galeen, laakiin gaadhigoodii gaadhi kale ayuu ku dhacay, sidii bayna labadoodii ku dhinteen. Gabadhii yareed markay soo dhawaxdayna waa loo sheegay arrintii. Aad iyo aad bayna arrintaa uga murugootay. Markii dambe adeerkeeda ayaa u yimiday, isaguna aad uga murugooday. Waxa uuna ku yidhi, gabadhaydii yareeday, kaalay aniga i raac oo gurigay la joog, waayo kelidan halkan ma joogi karaysid. Ninkaana waxbarashadii wax walbana kuu qabanaya ee ina mari. Adeera bay ku tiri, waxaan diidayaa inay gabadhaadu iyo carruurtaada aan islayno. Markaasuu ku yidhi, arrintaa ka warwar, aniga ayaa xalinaya, adigu isoo raacun, adiguna yeedh. Sidii bayna gabadhii yareed markii dambe ku yeeshay, adeerkeedna ku soo raacday, oo isaguna wuxuu waday halka ay xaafadii. Adeerkiina wuxuu lahaa 2 gabdhood iyo gabadhiisa ayay guri wada joogi jiray. Indhuhuna gabadha waa ay ka weynaayeen. Aroortii dambe gabadhii yareed waa uu soo kaxeeyey, islaantiina waa ay aragtay, isagay kelidii markii hore moodaysay. Markii dambe gabadhii markay ku daba aragtay, islaantii aad iyo aad bay u xanaaqday. Wuxuuna ku yidhi, gabadhaydii yareeday, qolka ordiisii gal, qolay garaysaa ma jirta bay ku tiri. Eshad ka keentayna ku cali, mana rabaanu gabadhan yar, kuwaygii baaban hayn kari laayee. Odaygiina isaguna waa uu xanaaqay. Wuxuuna ku yidhi, haddayna gabadhan joogeen, wax gurigan joogayaa ma jirto. Orod gabadhaydii yareeday buu ku yidhi, inamara qolkaagay ku soo tusay. Dibayna isku soo raaceen, qolkaygiina uu gabadhii yareed ku geeyey. Awna ku yidhi, gurigaagiioo kale ka soo qaado, meeshanna waa gurigaagii, dalkana iska saar, iskana jiifso, iskana raaxayso, aroortana iskuulkan ku geyn doona. Haye adeerbay ku tiri, aad baa u mahadsan tahay. Sidii bayna iskaga jiifsatay. Gabdhihii ayaa jaamacadda ka soo rawaxay. Markii ay arkeen qof gurigoogii fadhiya, ayay ku yidhaahdeen, hooy waa maxay jaariyadan guriga dhex fadhida? Haddaanu ku odhanay, gabadh noo shaqaysa, waxaanu ku odhanay, gurigayga soo dhex fadhiisi, kaale qolka nooga bixi wooye gabadhan. Islaantii qayladii faraha badneed ayay maqashay, wayna soo baxday. Waxayna ku tiri, tani maaha gabadh shaqaala, aabihiin baa guriga keensaday, aad iyo aadna way u dishay. Waxayna ku tiri, si walba oo ay u rabto inay gurigiina jiifsato, maanta wixii ka dambaysay nama jiifsanayso. Waxaana samaysiin jaariyadoo kale ka soo qaada, aabihiin baana in keenay. Gabadhiyadu hooyiisa ayaa maalin walba la gumaysan jiray oo sidii lagu dili jiray. Markay cuntada karisana, gabdhaha ayay u yeedhi jirtay, ku odhan jirtay, kaalaya cuna. Maalin maalmaha ka mid ah, gabadhii waa u timiday gabdhihii. Waxayna ku tiri, cuntadii waa aan diyaariyey, kaalaya cuna oo dusha kaalaya iskaga soo daadaya. Markaasay ku yidhaahdeen, halkan nuugu keen, ma rabna anagu inaan hoosta tagno, waayo aad baan u daalanahay. Gabadhii kalena iyadusina sidii oo kale ayay ku tiri, halkan nuugu keen, markaan jeclaanay inaan ku cunno. Markaasay ku tiri gabadhii, waayahay, anigaa ii soo qaadaya. Sidii bayna ku soo baxday. Markii dambena cuntadii iyadoo sida ayay la soo noqotay, agtoodiina waa ay dhigtay, wayna iskaga baxday. Gabadhii markay cuntadii dhigtay bay yidhaahdeen, ka waran haddaan maanta hooyo ku darno, waayo beryahan oo dhan lama garaacin, hooyo may tilig. Markaasay ku tiri, taasi waa aqli. Ayna mari, cuntada milix fara badan ku darnay. Sidii bayna isku soo raaceen labadii gabdhood, ayna ku sameeyeen cuntadii cunto madax badanna ay kaga dhigeen. Markii dambe islaantii ayaa qolkoogii soo gashay, siday u egto cuntada nooc ay tahay. Gabdhihii baa iska ogeysiiyey. Waxayna ku yidhaahdeen, hooyo aad baa u gaajooninay, yaduna cuntadii bay maanta milix ka buuxisay. Hooyo gabadhayaad la hadal, cuntadiina waa khasaaro, maanta waa adiga arkaya. Islaantii baa tiri, waan ogay gabadha yaree xun oo adeerkin wato inay har iyo habeen wax xun la socoto xaafadda dhexdeeda, laakiin aabihiin ayaan kari waayey, anigaana garanaya, in yari suga. Gabadhii ayaa soo gashay qolkii. Markii dambe islaantii ayaa si xun u eebaysay. Waxayna ku tiri, naa cunto haddaan kugu yidhi hablahayga gaajoonay u karig, ma waxaan kugu yidhi wax milixdu ku badan tahay karig, mise cunto hagaagsan. Gabadhiina waa la siiyey cuntadii aad kuu milixda badnayd. Gabadhii markay dhandhamisay, waxay tiri, anigu waxa maan samayn, waana layga been abuuranayaa, cuntaduna cunto nadiif ah ay ahayd, iyaguna waa ay ku qosleen. Gabadhiina aad bay u qaylisay. Aroortii dambe gabadhii haddana waa la soo toosiyey oo halguuri, kaalay adeega xaafadda u doon oo bax. Xilli hore gabadhii iyadu hooyiisa ayay xaafadii ka soo baxday. Siday u socotay oy kalba wada u maraysay, iyadoo luloonaysa hooyiisa
ayay markii dambe gabadhii waxay gashay meelo kaymaa oo meelihii dhannaa waa ay ka tagtay. Dana waa ay socotay iyadoonan baqanayn. Markii dambe aroortii markay soo wada baxday ayaa gabadhii waxay tagtay 3 eeloo islahayd biyo ka cab. Gabadh bay ku aragtay. Gabadhii ayaa ku tiri, aad baan u haraasanahay, maantoo dhan waxaan rabay inaan eelkan biyo ka cabo, eelkanna biyo kuma jiraane, orod biyo ii soo tar. Markaasay gabadhii ku tiri, waxba ha iska deedin, aniga ayaa kuu soo taraya, ana kuu soo raadin oo webiyaasha ayaan kaaga soo tariye, in yari sug oo halkaa ii sii fadhi. Gabadhii waa ay baxday oo waxay doontay biyihii. Baadigoobkii biyahana markii ayay gashay. Eelkii wayna hashay. Eelkii markay hashayna biyihii waa ay soo dartay. Gabadhiina waa ay u soo qaatay. Gabadhiina biyihii waa ay siisay. Gabadhii markay cabtay waxay isku beddeshay gabarh boqorada. Waxayna ku tiri, adiga ayaan ku tijaabinayay intaasoo dhan, laakiin waad ka soo baxday tijaabadii. Wax walbood rabtid meeshan ka qaado, iskaana tag, xaafadan ku dhibtay. Gabadhiina dahab bay soo qaadatay, gurigiina waa iskaga tagtay. Guri kaloo aad weyn ayayna dhisatay. Meeshii bayna kaga raysatay islaantii xumayd iyo hableegii. Kii dambe gabadhii hawlo fara badan ayay qabatay, waxayna noqotay mid ka caana tiifiyadii. Islaantii markay aragtay iyadoo tiifigii daawanaysa ayay istiri, tani mayna hintii ku shaqaysan jirtay, ma maanta ayay sidan u kibirtay. Markii dambe cinwaanka gurigeyga ayay raadisay. Gabadhii yaraydna waa ay u timintoo gurigeygii ayay ugu timiday oo iska dhigaysa gabarh miskiina. Markii dambe ayay ku tiri, gabadhaydiiri waxna ku weydiiya, waxaan oo lacag halkee baad ka soo hashay, waxaan rabaa inaan soo helo, eerkaa shaqa wacan ma haysto. Markaasay gabadhii ku tiri, halkaa iyo halkaasaan ka halay, waxyaabahana jira, shuruudahaasoo dhan ayay leedahay, ee shuruudaha iska ilaan sidaad u soo qaadatid. Islaantii sidii bay ku soo baxday. Meeshiina waa ay timiday iyadoo gabadhii iyo waxyaabahay u soo sheegtay oo dhan ilowday ayay timiday. Gabadhii markay aragtay ayay ugu soo dhowaatay. Markii dambe gabadhii markay baahideedii ka yaabtay iyo siday u baahoonayso ayay diiday inay wax walba u qabato. Gabadhuna waxay ka baryaysay inay biyo u soo tarto. Daantuna damaacinnimadii ayaa qaaday. Meeshiina waxay bilowday inay baraabtii urursato, wixii walba dhulka yaalayna ay ku darsato. Iyadoo alaabtii urursanaysana islaantii markii dambe sas aad u waaweyn baa ku soo baxay. Wayna qaniineen, sidii bayna islaanta ku dhimatay. Iyadii dawaacinimadeediiba halkii ayay ku dhinteen. Imtixaankii gabadha laga qaadayna iyadu kama ay soo bixin. Sheekadeennii maantuna intaasay ku dhammaatay. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ee aad channelka ku bixisiin iyo dadaalkiina dheeraadka ah ee aad nagu soo bixinaysay. Waxaanan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.